بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ka hadli doonaa insha Allah taala tacliinta sare ahamiyaddeeda wadciga hadda Soomaaliya iyo heerarka ay marayso iyo sidii aan u maalgashan lahayn tacliinta sare iyo waxyaabaha aan ka dhaxlayno hadaan maalgashano طبعا Soomaaliya burburkii kadib waxbarashada heerar kala duwan bay soo martay burburkii kadib sagaashamaadkii waxa weeye waxa lagu guuleystay oo runtii dad Soomaaliyeed oo iyagu wadanka joogay ay ku guuleystay inay aasaasaan waxbarashada asaasiga ah iskuul ayaa la aasaasay dhamaadkii 97 ayaa waxa bilowday in la aasaaso jaamacado local ah oo markaas tacliinta sare matelayay alxamdulillahina waxaan hadda maraynaa marka stage fiican oo marxalad aad u wanaagsan oo in jaamacad fara badan dalka ay ka jiraan oo gobollo badan oo Soomaaliya ka tirsan ay jaamacado iyo macaahid sare ay ka jiraan jaamacadahaas iyo macaahidda sare waa meesha mustaqbalka inoo soo saari doona dadkii dalkan hogaamin lahaa waxa weeye dadkii dalkan dhisi lahaa saadaradeed marka jaamacaduhu iyo macaahidda sare waxay soo saaraan waxa weeye kawaadirta muhiimka u ah horumarka haday noqoto dhaqaale ahaan haday noqoto siyaasad ahaan haday noqoto bulsho ahaan haday noqoto ilaalinta dhaqanka iyo diinta intaba waa meeshii ay ka soo baxayeen oo isla markaasna muhiim ay tahay in la ilaaliyo amaanada cilmiga ahi iyo akhlaaqiyadka tacliinta sare ay u baahan tahay tacliinta sare dabcan waa wixii ka bilaabanaya jaamacadaha nidaamiga ahi dabcan tacliimigu waa mid asaasi ah oo dugsi hoose dhexe sare ah iyo mid sare oo ka bilaabanaysa jaamacadda digriga koowaad masterka PhD-ga macaahidda kale oo xarifiga ah kuwa kale oo technical ah ama ha noqoto kuwa veterinary ah ama medicine ha noqoto ama kuwa kale caafimaad ha noqdaan ama kuwa lagu barto artska ha noqdo waxyaabahaas kala duwan oo dhan oo ka sareeya dugsiga sare waxay noqonaysaa tacliin ama wax weeye tacliinta sare tacliinta sare waxay u baahan tahay runtii si aan u soo saarno waxa weeye kaadir aqoontii loo baahnaa iska leh isla markaana curin kara fikrado lagu horumarin karo dalka waxaan u baahanahay in maamulada iyo dadka gacanta ku haya tacliinta sare inay iska kaashadaan sidii loo heli lahaa aqoonta ama maxsuulka tacliinta ee dadkaas kaadirka aan soo saareen ay u baahan yihiin saadaradeed marka in had iyo jeer jaamacaduhu ay ku dadaalaan macaahidda sare researchka ama baxthiga oo ardayda lagu tababaro in ay wax curiyaan isla markaana wax alifaan oo wax ay baaraan oo xaqaa'iq ay gaaraan waxay muhiim u tahay in la helo kaadir wax horumarin kara haddii jaamacaduhu aysan ka duwanaanin tacliinta asaasiga oo caadiga ah oo qofkii wax la siinayo oo qaab talaqi uu ku qaadanayay laakiin uusan fakaraynin waxaa adkaanaysa marka in aan helno kaadir aqoonyahana oo fakari kara oo waaqic aan ku jirno oo hadeer burburka ah naga saari kara waxaan rabnaa jaamacaduhu ardayda ay soo saarayaan iyo aqoonyahanka ay soo saarayaan in uu ka duwan yahay waxa weeye qofka caadiga ah ee aqoonta aan xambaarsanayn sida uu fakarayo waxaan rabnaa inuu soo baxo kaadir aqoonyahana oo ka barax tiran oo waxa weeye ka aradan dhammaan waxyaabaha cudurrada bulshada ay ka mid tahay qabyaalada ay ka mid tahay xasadka ay ka mid tahay nafacaysiga ay ka mid tahay boobka hantida dadweynaha intaasoo dhan waa in jaamacaadka iyo macaahidda ardayda ay soo saarayso waxa weeye ay ka baabi'iso isla markaasna ay soo saarto qof horumarsan oo curin kara fikrado dalkan lagu horumarin karo ummadana wadcigeeda iyo xaalkeeda looga bedeli karo dabcan adduunka marka laga hadlayo horumarka iyo ganacsiga iyo la dagaalanka cudurrada hadda corona jira waxa laga yaabaa corona jaamacad iyo macaahid baxthi ah inay ku mashquulsan yihiin daawadii waxa weeye dadka looga badbaadin lahaa cudurkaas inay hadeer hayaan waxa laga yaabaa inaan maqalno jaamacadda Hiblaayo oo wadan hebel ku taala ayaa waxay soo saartay waxa weeye caqaaqiirtii ama waxa loo yaqaano waxa weeye daawadii cudurkaas looga hortagi lahaa saasa marka waxa annagana Soomaali ahaan aynu fursad u siin karnaa ubadkeena in aanu ku dhiirigelino inay baxthi cilmi ah sameeyaan inay research sameeyaan saasa marka la rabaa in jaamacadaha marka la qiimeynayo in lagu kala qiimeeyo yaa jaamacadda yay tahay jaamacadda ugu baxdiga badan
ugu taqaariirta badan oo soo saarta ardaydeedu ay ku dhiirigelisaa inay waxa weeye research kala duwan ay sameeyaan waana meesha aan isleeyahay lagu kala tegayo markay noqoto aqoontu oo aqoontu waa akhrin iyo research iyo qofka inuu dabagalo waxa uu rabo inuu barto isla markaasna uu isagu ugu dambeyn fikrad cusub uu ka keeno ama uu gaaro xaqiiqo aysan dadka kala ogeyn kulliyadaha iyo tacliinta sare ee aan rabno waa inay ka jawaabaan baahiyaha suuqa Soomaaliya waa dal khayraad badan iska leh oo resource badan u yaalo waxay leeyihiin mid xoolo waxay leeyihiin mid badeed waxay leeyihiin mid macaadin waxay leeyihiin mid waxa weeye kala duwan oo aan la iktishaafin weli intaasoo dhan marka waa in jaamacadaheena iyo macaahidda sare ay soo saari karaan arday berid mustaqbalka ka shaqayn karta in resourciga aan haysano oo dhulka iska ceegaaga in ay nooga faa'iideeyaan isla markaasna xaaladda nololeed iyo midda bulsho iyo midda dhaqaaleed ay ka saari karaan wadciga hadda aan ku jirno laakiin jaamacaduhu hadday ku celceliyaan hal wax oo isku eg oo isla markaana aan ka jawaabayn baahidii suuqa ama aan fursado shaqo abuuraynin waxaa marka adkaanaysa inaan ka baxno heerka dhaqaale ee aadka u liita oo waxaana la ku tiriyaa dowladaha ugu dhaqaale liita adduunka ama dowladda ugu faqiirsan baa marka qaarkood aan soo galnaa marka laga hadlayo waxa weeye heerarka dhaqaalaha ee caalamka saa daraadeed marka waxaan rabnaa jaamacadaheennu iyo macaahideenna sare inay ka jawaabaan baahiyaha suuqa kulliyado badan runtii muhiim ah ayaa bannaan oo weli aysan jaamacaduhu xoogga saarin oo aan ku dhiirigelin lahaa in ay xoogga saaraan kulliyadaha waxaa ka mid ah xanaanada xoolaha ah kulliyadaha culumta badda ka mid ah kulliyadaha macaadinta ka mid ah waa sax oo waxa weeye waxaa adag maalgelintooda iyo in la helo kaadir aqoon-yahana oo dhigi kara laakiin waxaan filayaa haddii la isku taxallujiyo oo jaamacaduhu ay aruuriyaan oo awoodda la isugu geeyo oo la iskaashado inay imaan karto in la helo kulliyado baahida suuqa ka jawaaba waxaan hadda iyadana muhiim ah oo aan ka hadlaynaa tacliinta sare waxay u baahan tahay maalgelin tacliintu ma ahan yacni fardi kifaayo dad gaara inta loo xilsaaro oo iyagu ay jaamacada intay furaan ay ku dhibtoodaan laakiin waa fardu cayn san aaminsanahay tacliintii aqoonta oo qof walba ay muhiim tahay waajibna ay ku tahay inuu waxa weeye uu ka fakaro ummadan horumarkeeda iyo tacliinta sare maalgelinteeda ganacsatada alxamdulilah maanta Soomaaliya dhaqaale ahaan waa soo kobcaysaa oo 2000 heerkii aan joognay maanta ma joogno shirkado badan baa jira ganacsato badan baa jirta oo dhaqaalaha haysata ganacsatadaas iyo dadka xoololeyda ah oo dhaqaalaha haysta waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku marnaystay dhaqaalaha waa inay ka fakaraan maalgelinta tacliinta sare maxaa maalgelinta tacliinta sare muhiim u tahay inuu maalgeliyaan لأنه wax soo saarka iyaga ay rabaan inay sameeyaan iyo dhaqaalaha ay rabaan inay kubciyaan iyo hantida ay rabaan inay sameeyaan waxa ku xiran inay haystaan dadkii saxda ah oo ka shaqeyn lahaa haddii aan la haynin dadkii waxa weeye computerska iyo aqoonta teknolojiyadda la xiriirta oo saxda ah waxa imaanaysa marka in ganacsatadeenu ay soo dhoofsadaan dad ajaaniba oo lacag badan ay ugu kacdo haddii aan la helin dad waxa weeye yaqaana culumta xanaanada xoolaha ah iyo la dagaalanka cudurrada xoolaheena ku dhacaya waxaa imaanaysa markaas in maxjaro ajaanib ah aan keensano isla markaana lacag badan ay ku kacdo saan uga badbaadno marka arrintaas oo dhan oo aan u dhiirigelino ubadkeena oo aan u dhiirigelino wax soo saarka gudaha oo aan dhaqaalaheena kor ugu qaadno waxaa muhiim ah maalgelinta tacliinta sare tacliinta waxaad moodaa haddeer inaan xil badan la iska saarin oo xataa maamulada heer federaal markay noqoto iyo stateskuba dhaqaalaha lagu bixiyo runtii amniga ayaa ka badan waxyaabaha kale muxuu ahaa ay runtii iyadoo amnigu muhiim u yahay haddana waxaad moodaa mar kasta boorshanka ama nisbada tacliinta in aad u yar yahay oo la oran karaba xataa ma dhaafo 7% ama boqolkiiba 8 boqolkiiba 10 haddii jirto cid ku maalgelisa saa daraadeed marka maamulada iyo dowladda iyo ganacsatada iyo intaba waxaa muhiim ah haddii aan rabno wadciga aan ku jirno haddeer inaan ka baxno in tacliinta la maalgeliyo yay tahay dabcan waxbarashada ama tacliinta sare inay maalgashato cid walba waa muhiim inay tacliinta sare maalgeliso haddii noqon lahayd dowlad oo aan dowladuhu ka rabno inay kor u qaadaan waxa weeye boorshanka ay ugu talagaleen ama qaybta miisaaniyadda ay ugu talagaleen tacliinta inay kor u qaadaan baan rabnaa oo arrintaas waa muhiim dhaqaalaha aan ku bixinayno waxyaabaha kale waxaan isleeyahay waxay ka soo noqon lahayd haddaan maal gashan lahayn tacliinta oo xataa haddii amniga laga shaqeynayo xataa waa in la sameeyo macaahid
amniga la xiriirta oo tacliin sare ah oo aan maalgelino ganacsatada waa muhiim iyaguna sidoo kale inay focus saaraan oo waa soo sheegnay waxaan nidhi haddii aysan tacliimta sare maal gashan waxaa wax badan uga bixi doonaa inay shaqaale ajaniba ay keensadaan runtii bulshadeenna waxaan rabnaa sida masaajid ay uga fakaraan oo mujtamaceenu waa mujtamac muxaafida mutadayina maasha allahu tacaala oo runtii ahamiyad weyn siiya duurka cibaadada iyo maraakiista islaamiga iyo masaajidda tacliinta sare runtii waxay ka mid tahay maraakiista islaamiga ahamiyadda masaajidda ay leedahay kale ayay leedahay waana meesha aan ka soo saarayno dadkii ducaadda ahaa oo masaajidaasi inaga sixi lahaa cibaadada inoo toosin lahaa muxuu ahay salawaadeena inoo toosin lahaa zakaadkii inoo toosin lahaa nolosheena iyo saa u noolaanayno waxaasoo dhan dadkii soo bixi lahaa waxay ku jiraan macaahidda iyo jaamacaadka saa daraaddeed marka waa inaan iyagana maalgelino oo sida aan uga fakirayno amuuraha aan soo sheegay oo dhan waa inaan tacliintan uga fakirno oo qof kasta oo soomaali ah oo muslim ah uu tacliintaasi uu sadaqo ku bixiyo oo isla markaa la dhiirigeliyo macaahidda iyo maraakista runtii wadciga hadda ay tacliinta sare ku jirto markaad wareysatid oo aad hoos u wareysato waxay kuu sheegayaan inay ku jiraan deficit inaysan isbixin karin in macallimiintu ay mushaaraad yar uusan u qalmin ay qaataan in macallimiintu ay ka cararayaan jaamacaadkii iyo madaarista ay ka cararayaan ay u cararayaan inay ka shaqeeyaan hay-adaha caalamiga ama kuwa kale ay aadayaan ama ganacsiyada ay aadayaan waxay ahayd asalka in dadka aqoonta oo kaadirka aan leenahay in lagu hayo waxa weeye jaamacaadka limaada لأنه أبد كان أفضل موالده وحجريها إن الماء تيلا ودره إن الماء كادر وصبح هذه مركب معالك صوص صار لها وسنمال جلينين حاجة أوجا إيمانية مركب الماء تيلا أو أقويها عن أبانا مركب أنا دب وسوق الله بنا وبالشدة إنه أرنتاس حوجة ساعته ما